muddo 30 sano ah ayaa ka soo wareegay markii Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir uu masaajidka Nuur al-Huda oo ku magac dheer Rusheeye kuna yaala magaalada Hargeysa uu ka bilaabay tafsiirka Qur'aanka Kariimka ah iyo duruusta diiniga ah. Sheekha oo waraysi gaar ah siiyay telefishan Kansaab TV ayaa markii ugu horeysay nooga warramay goortii uu bilaabay tafsiirka Qur'aanka Kariimka ah oo si weyn loogu bartay Sheekh Dirir. Bismillah. waxaan soo bilaabay duruusta kale way ka sii horeysay laakiin tafsiirka waxaan bilaabay 1996 ayaan Hargeysa ka bilaabay markii dambe qaxoontigii baa dhacay markii dambe 19 ayaan masaajidkan ka bilaabay bishan March ee imika aynu ku jirno oo ay ku dhamaanayaan 30 sanadood. guud ahaan Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa xaaladda nabadgelyo ma ay ahayn waqtigaasi mid hagaagsan. Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir ayaan weydiiyay bal inuu sawir guud ka bixiyo sida xaaladdu waagaas ahayd. xaaladdu aad bay u adkayd maamul adagoo dhisan waqtiga ma jirin dadku qoryo iska wada siteen maxaan idhaahdaa waa laga yaabaa mararka qaarkood maqaaxiyahan halkan dayuuradda ku taala iyo maalmaha qaarkood xasuusanagoo ka shahaynayna in rasaas la isweydaarsaday ciidamo magaalada iska dhex wareegayay kadibna dadkii qaarna dhinteen qaarna dhaawacmeen oo lagu kala yaacay marka nabadgelyadu aad bay u xumayd waxaanaad moodaysay dee waqtiga kala dambeynta iyo aad bay u liiteen waqtigaas maadaama dadku qoryaha iska wada siteen jabhadana jireen oo reeruhu qoryaha iska haysteen marka isqoonsi yimaado rasaas baa iska dhici jirtay marka aroos oo kale la sameynay rasaas baa dhacaysa labada isu calooda way isku ridayaan marka dee waqti fawda jirtay ahayd qiyaastii 16 ilaa 17 jeer ayuu Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir khatimay tafsiirka Qur'aanka Kariimka ah tan iyo markii uu masaajidkani ka bilaabay sanadkii 1991 haddaba waa maxay waxyaabaha farax geliyay naftiisa ama caqabado uu u arkay inay yihiin markaad aragto dadkiyo wax faa'iideysanayo su'aalihii ku weydiinaya iyo dhalinyaro aqoontii yeeshay oo ka soo baxay iyo dadka qaarkood oo berigii hore macsiyo iskaga jiray ama jabhadihiiba ahaayo iskaba yara xayraansanayo hanuunay oo iyaga laftigoodii dadkii wacdiyaya waxaan xusuustaa ragga qaarkood oo ahaa qolyihii gaadiidka saara ama jabhadda ahaayee laga caban jiray oo tafsiirkii intay fadhiisteen ay muddo 20 sano fadhiyeen ummadii shuyuukhu ah oo iyagii runtii wax u dhigaya wax faa'iideynaya wax farxad la weeye sidoo kale waxa farxad la de kalaamkii Ilaahay markuu dhamaado ee la soo dowray 2 sano ama 3 sano loo fadhiyo ee uu dhamaadana de waa iyaduna farxad bay leedahay waxyaabaha kolley aan ka naxo waxa kamid ah de xusuusinta aakhirana leh marka cajaladii dib aad u eegto tafaasiirtii hore dhigayay dad badan ama saaxiiba ama kamida ehelka magaalada oo aad arkayso hebel oo dhintay iyo hebel oo dhintay iyo hebel oo dhintay hebel oo dhintay oo kamida ragii xalqada fariisan jiray marka adigiina waa inaad tiraahdo wallahi liiskaas baad ku jirtaa in badan baa la maqlay Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir dad fara badan raadiyoga iyo idaacadaha ka dhageysteen qaar kale telefishinada ka daawadeen in imika barihii bulshada iyo Facebook iyo YouTube iyo meel walba dadku magacaaga si weyn bay uga dharagsan yihiin marka waxay isweydiinayeen muddada inta leeg sheekhu ee dadka wax barayay ee dadka u faa'iideynayay ee cilmiga barayay talo isaguna ma faa'iideystay طبعا qofka u horeeya ee wax faa'iideysanaya waxa weeye qofka wax gudbinaya maktabada al-Husayni oo ku taala bartamaha magaalada Hargeysa ayaa kamid meelaha duubista duruusta sheekha doorka weyn ka ciyaaray mulkiilaha maktabada al-Husayni Xuseen Nuur Axmed ayaa iiga warramay wixii ugu horeeyay ee uu ka duubay Sheekh Dirir iyo wadcigii dalku ku jiray waagaas 1994 ayaan Sheekh Dirir wixii ugu horeeyay aan ka duubay waxaanu ahaa kitaabkan la yiraahdo Siraajul Wahaajka oo uu ka waday masjidka yar ee Abu Bashiir. Xuseen Nuur Axmed oo sifeeyay shakhsiyadda Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir ayaa waxa uu yiri midi waxa weeyaan qorshaha inuu yahay nin ku fiican ama sheekh ku fiican dejinta qorshaha uu doonayay inuu fuliyo qodobka labaadna waxa weeye in uu qodobka ama qorshaha uu dejiyay uu ku dadaalo sida uu yahay inuu u fuliyo dhinac kale hadii la iska taagana waxaynu oran karnaa
waa dadka ugu waqti ilaalinta badan. qaar ka mid ah bulshada magaalada Hargeysa oo aan wax ka weydiinay tafsiirka 30 sano jirsaday tan iyo markii uu masaajidkan ka bilaabay Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir ayaa nala wadaagay dareenkooda. shashadaha ka daawan jiray markii dambe sheekha Hargeysa live ayaan tafsiirka ugu baran jiray. ما شاء الله شيخ هرجيسة أدو عنا ويا تفسير كأدو عنا أدو في عن تفسير شيء كلا دقيقتيسا يفهم قصة في عن كذا دكتور ما شاء الله. وحنا أدو حنا هاي تفسير كقرآن الكريم كأه ونبدأ بالسوري الله يمكن سنة تقول بيه خطبات معانا أدبان وحنا وانا ما ده كأخو عالم أدوين ومدنا أدو في هذه علم قصة إنتها ومعها هذا اللي يرده هذا. أحمد محمود يوسف تلفزيون كصاب Hargeysa.